maanta ayaa degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb waxaa looga dabaaldegayaa maalin aan looga dabaaldegin Soomaaliya inteeda kale maalin ay ugu magac dareen maalinta shuhadada ayaa 17 bisha Ramadaan ay ugu dabaaldegaan sanad walba waxay ku tilmaameen maalinta shuhadada in ay tahay maalintii ay dhinteen ciidamo fara badan oo ka tirsan maamulka Ahlusunnah wal Jamaaca kadib markii dagaal faraha looga gubtay ay la galeen xarakada Al-Shabaab ciidamada daraawiishta Galmudug ayaa dhoolatus gaad ka ciyaara maanta waxay ku soo bandhigayaan wadooyinka waaweyn ee degmooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinkaasi haween dhalinyaro waxgarad iyo caruur ciidan ayaa u badan dadka isku soo baxay sameynaya dadkan ayaa waxay sheegayaan in ay xusayaan maalinta shuhadada ay u asteeyeen maanta oo ah 17 bisha Ramadaan inta badan goobaha waxbarashada ayaa xiran iskuuladii iyo jaamacadihii sidoo kale waxa fasaxan dugsiyada Quraanka Kariimka goobihii ganacsiga isku socodka dadka iyo gaadiidka ayaa gebi ahaan baxayran waxaana lagu amray bulshooyinka ku dhaqan degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel inay isugu soo baxaan fagaarooyinka waaweyn ee lagu xusayo maalinta shuhadada maalintan ayaa loo asteeyay kadib markii dagaal faraha looga gubtay ciidamada Ahlusunnah wal Jamaaca ay la galeen dagaalamayaal ka tirsan xarakada Al-Shabaab halkaas ay ku geeriyoodeen ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan maamulka Ahlusunnah wal Jamaaca waxaa la filayaa in go'do mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug ay ka hadlaan maalintan caalamiga ah ee ay aastaysteen عبد الرحمن كمبالا راسل ميديا مقدشو